halgan habeen la geystiyo haybsiga adduunkiyo hagardaamadiisa haatan loo ordayaa hooyo fariintaan dirana hollaan kuwa jooga iyo hareeraha dunida kale dalku hidahooda yaal ee halkoo wowgay hirdiyey haddana adeerkay hantiyey uunbaan anna hoorayoon mugdhaaf maasada huray cabdirasaaq saa sheegtay magacaygu waa xamse axmed kaamil cawaale cabdirasaaq waxaan kasoo jeedaa qoyskii fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed uu kasoo jeedaa Allah u naxariistay cabdi kaamil cawaale naftii hore uu kasoo jeeday oo guud ahaan deegaankeena Soomaaliyeed runtii aad iyo aad looga wada garanayo oo ah mujaahid aad iyo aad taariikh weyn oo mug iyo miisaan ku leh deegaanka Soomaalida runtii fankaygu waxa uu kasoo jeedaa fankaasi oo ahaa fan hido amba fan qoys ahaa uu kasoo jeedaa haddaan ku sheego cabdirasaaq fankaygu waxa weeyaan mid hidda raaca naanaysteeda dadku waxa bay yiraahdaan amba hal abuurka hidda raacay bay yiraahdaan markay ugu naanaysayaan suugaanta sameynayay iyo ma aragtay iyo fankayga waxay yiraahdaan hal abuurka hidda raacay waxa weeyaan fanka waxa ku jiray Allah u naxariistay awowgay kaamil cawaale cabdi kaamil ka hor kaamil cawaale oo wuxuu sameyn jiray gabayo maasooyin ka hadlaya nabadda isdhexgalka bulshada deegaanka horumarka Allah u naxariisto naxariista ka waraabiyo dabadeed waxa kala wareegayaan wala way jiraan inay family-ga dad fara badan oo ka tirsan inay qoraan ilaa hadda oo idooyinka iyo ay qoraan hadana maxaadi cadna waxa soo ifbaxay oo soo iftiimay oo noqday fankiisu mid hirgalay mujaahidkii weynaa ee cabdi kaamil cawaale naftii hore oo Allah u naxariistay deegaankeena Soomaalida aad iyo taariikh mug iyo miisaan ku leh qof wadaniya oo dad jecel ahaa runaantii heesiisuna ay aad iyo aad u hirgaleen ayaaba kamid ahaa maxaa heedeen ka dhaxlay awoowo Allah u naxariistay kaamil cawaale cabdi kaamil cawaale ayaa ka dhaxlay oo naanistiisu ahayd amba ku caan ahaa naftii hore الله نحرستي بعد نفتي هراء أنيقو حقا وحنا سلاي هاي ميكا كالنتي بوزيشنكي إنه بناية هاي بد مود عبد الرزاق لكن لابلا كعيقا ما هان لعطنا إن بوزيشنكي ما أنت أنا نقصوقرو أو أنا سكوار كو إنا محسمين كرو oo qof umada la hadli kara aan isku arko markii aan dareemay ayaan waxaan isweydiiyay Cabdirasaaq oo su'aal ah niyo fankan maxaa waxaan qoraysaa muxuu yahay amba waxaad ka shaqeynaysaa muxuu yahay baan isweydiiyay markaan marayo ilaa iyo 15 heesood dabadeedna isla maskaxdii iyo qalinkaan haystay markaa baa jawaabay wuxuu igu yiri hees bay jawaabtay markaa Cabdirasaaq waxa ay leedahay heestaasi hilin hobol weyn jeexiyo hooy leega sugayo leega haybinayaan had hoobay soo galay hubaal weeyo fankuna hidahayu madleedhiyo dhaqankeenu hagaa hallow ka ilaaliya ee halku awowga hirdiyay haddana adeerka hantiyay baadadan hoortayood mugdhaaf maasada huray halgan habeen la geystiyo haybsiga adduunkiyo hagardaamadiisa haatan loo ordayaa hooyo fariintaan dirana hollaan kuwa jooga iyo hareeraha dunida kale dalku hidahooda yaal ee halku awowga hirdiyay haddana adeerkay hantiyay baan anna hoorayoon mugdhaaf maasada huray dabadeed Cabdirasaaq markii heestaasi jawaabtay waxaan aaminay amba aan maskaxdaydu ay qaadatay in waxaan fan yahay hidda keentaya amba hidda raacaya marka halkaa waan ka saamba qaaday saasana sii waday marka aad iyo aad nabwani bal aan sii gudo galno barnaamijkeeni iyo maansooyinkaad qortay iyo walow ay aad u farbadan yihiin waxaan soo qabanayaa maansadii ahayd dhamiir nabadu weeyaan waa maasanta Cabdirasaaq mar kale adiyo bahda nabad TV aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa hawsha bulshada haysan runtii Cabdirasaaq waxa weeye walaal waxa weeye qofka hal abuurkii wuxuu ka turjumaa bulshada dhexdeeda waxa ay xaaladaha ay ku jiraan buu ayuu ka turjumaa qofka hal abuurku marka nabadu waxa shayga dunida ugu qaalisan Soomaalidu hore ugu maahday nabad bacaan ka macaan waa waxa dunida ugu qaalisan hadii rag gogoshiyo maxay hore la isku weydiiyay rag gogoshiyo waa nabad baleesini marka waxa weeye nabad waa waxa dunida ay ku kala socoto nabad la'aanna waa nolol la'aan marka waxaan si dareenkayga aan u cabraya markaan arkay xaaladaha ku gadaaman dunida amaliba khaasatan wadamada Afrika ama geeska Afrika mandaqada geeska Afrika markaan arkay colaadaha ka socda iyo colaadaha maxay gacanka Carabeed ka socda markaan arkay ama googi Carabta oo kale wadamada ay soo dhiban yahay waxaan dareemay inay jirto wacyigelin dhinaca nabadii marka maasadan dhamay nabadu weeyaan waxay ka dhalatay maxaa heedayaan burburka maxaa umada Soomaaliyeed ee ku dhacay iyo guud ahaan umada qowmiyadaha dunida ku nool adduunka oo dhan inay nabadu tahay miftaaxa nolosha
marka waxaan maasadii bilaamisa waxay leedahay maasada magaceedu waxa la yiraahdaa indhamay nabad weeyaan yani waa wax dhameystiran nabadu waxa dhameystiran waxa kaliya waxa waa nabadu ma dhameystiran nabad bacaana ka macaan Soomaaliya tira maasadana waxa magaceedu dhamay nabad weeyaan maasadii dhamay nabad weeyaan oo bilaamisa waxay leedahay indhamideeda duuyadu nooluhu dhamaantii wuxuu dheefsanayay dhadhan ugu macaan badan dhabtii noloshan aadmigu dhamay nabad weeyaan dhiimba aroornimo dhiisha aad u culataa subag lagu dhaashadaad labeenaad ka dhalisaa garoodhkii iyo dhaydaa dhinacaagan yaallood kolba mid dhammaysaaya dhadhan ugu macaan badan dhabtii noloshan aadmigu dhamay nabad weeyaan hadday dheelido nabaddaa la dhinac maro dhulku wuusdhala rogi qaxootaad salkaa dhigan macaluulaan dhammaan iyo carruurtaad dhexdood geli cudurbaad dhexda u xidhan dhigaabaad baryootami ruux dhabar jabaad noqon dhadhan ugu macaan badan dhabtii noloshan aadmigu dhamay nabad weeyaan